Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. saaxiibada ku xiran janaalkan waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada muuqaal aad iyo aad u qurux badan, islamarkaasna aan idinkugu soo bandhigi doono qiso aad iyo aad u muhiim ah, islamarkaasna aad wax badan ka faa'iidi doontaan haddii uu rabbi idmo insha allah. qisadana waxay ku bilaabanaysaa nin ka mid ahaa dadkii saalixiinta ayaa wuxuu yiri, waxaan soo galay dalka Masar, waxaan arkay nin biraha ka shaqaysta isagoo birta dabka uga soo bixinayo gacantiisa, birtii oo guduudan gacantiisa ku gadgadinayo isaga oo aan ku gubanaynin. waxaan is iri, ninkanu waa awliyo oo dabka kuma gubanayo. kadib waan u dhowaaday, waan salaamay oo waxaan ku iri, walaalkaygiyow, allihii kugu manaystay karaamadan ayaan kuugu dhaarshay, ii ducee. markaas ayuu ooyey, wuxuuna igu yiri, walaalow, sida aad i mooday maahi. kolkaas ayaana ku iri, walaalow, waxa aad samaynayso qof aanan awliyo ahayn ma samayn karo. wuxuuna yiri, arrintan waxay ku timid sheeko yaab badan, haddaad rabto inaan kaaga sheekeeyo waan kaaga sheekayn. kadib ayaana ka codsaday inuu iiga sheekeeyo sheekadaas. wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay, maalin maalmaha ka mid ah waxaan dhex fadhiyey dukaan, waxaana ahaa nin firfircoon oo bulsho ah. waxaa ii timid naag aanan weli arkin, naag iyada ka qurux badan. waxayna igu tiri, walaalow, waxaad ilaahay dartiisa u bixinayso ma haysaa? waxaan ku iri, guriga ma ii raacaysaa? aan ku isticmaale, waxaad rabto oo dhanna waan ku siinaa. kadib cabbaar ayay i fiirisay, waana iga tagtay. in muddo ah ayay iga maqnayd. kadib way ii timid, waxayna igu tiri, dan iyo baahi ayaa igu kaliftay inaan kaa ogolaado inaan ku raaco, ee ina keen. dukaankii ayaan xiray, guriga ayaan u watay. markii aan guriga galnay, waxay igu tiri, waxaan ka soo tegay carruur aan dhalay oo aad u baahan, ee hadda wax yar isiisii aan u sii geeyo, ee waan kuu soo noqonaa. ballan adag ayaan kala qaadanay inay ii soo noqoto. waxaan siiyey xoogaa daraahim ah, way baxday. saacad kadib ayay ii timid, guriga ayay iigu soo gashay. albaabka ayaan xirtay. waxay igu tiri, maxaad u xiratay albaabka? waxaan ku iri, dadka inayna arkaan ayaan ka baqayaa. kolkaas waxay igu tiri, walaalow, dadka waad ka baqaysaa oo allihii ku abuuray maxaad uga baqi weyday? waxaan ku iri, alle waa dembi dhaafe naxariis badan. kadib xaggeeda ayaan aaday, markaasay ooysay oo ay jaraysay, ilinteedana dhabanadeeda ku soo hoortay. waxaan ku iri, maxaad la ooynaysaa oo aad la jaraynaysaa? waxay igu tiri, ilaahay cabsidiisa ayaan la ooynayaa oo aan la jaraynayaa. kadib waxay intaas ii raacisay, walaalow, haddii aad ilaahay dartiis ii dhaaf, waxaan ballan qaaday in uusan alle kugu cadaabin dab adduun iyo aakhiro. intaas markay igu tiri, waan istaagay, wixii aan hayay oo dhammina waan siiyey. waxaana ku iri, gabar yahay, waxaan kugu dhaafay ilaahay cabsidiisa. markay iga tagtay, waxaa aad ii qabatay hurdo. waan seexday, waxaan riyo ku arkay naag aad iyo aad u qurux badan, madaxana ku wadato taaj ka samaysan yaaquudka guduudan. waxay igu tiri, ilaahay khayr ha inaga kaa siiyo. waxaan ku iri, oo tuma ahayd? waxay igu tiri, waxaan ahay hooyadii carruurta lahayd ee kuu imaanaysay, ee aad alle dartiis ku dhaaftay. ilaahay dabka kuguma gubo, ku gubi maayo adduun iyo aakhiro.